Waqtigan la jooga qaaxada ama TB-shada waa cudurka ugu badan ee loo dhinta adduunka. Waxay tirada dhimashada TB-shada ka badan tahay tirada u dhimato HIV/AIDS-ka iyo malaariyada. Muxuu yahay cudurkan? Sidee caabuqan jirka ugu noolaadaa muddo dheer? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات الجود نايف مرانكا أما عذرات كدع فيره. هدي أد جنالك كعصوب تاي فضلا سبسكرايب ده سي أدنا على سعة مروال بفضلا ريح جنب الالك. ما أنت وحاك هدلي دونا عذر كقاحدة أما TB-shada. وقتيان لجوغا قاحدة أما TB-shada وعذرك أغبضان إيلود انت أدونك. waxay tirada dhimashada TB-shada ka badan tahay tirada u dhimato HIV/AIDS-ka iyo malaariyada. Muxuu yahay cudurkan? Sidee caabuqan jirka ugu noolaadaa muddo dheer? Sida badan bakteeriyada sababta TB-shada waxaa la yiraahdaa Mycobacterium tuberculosis. Waxaa qofka lagu qaadsiin karaa hawada ka timaada qofka qaba TB-shada, sidaas ayayna jirka ku soo gashaa. Waxay u gudubtaa sanbabada, waxaana markiiba u soo degdega difaaca jirkeena unugyo ka tirsan oo la yiraahdo macrophages, waxayna halkaas ku burburiyaan kuna baabi'iyaan bakteeriyada TB-shada qofka ku ridi lahayd. Inta badan jirka qaabkaas ayuu isaga difaaca bakteeriyada TB-shada, balse waxaa jira xaaladaha qaar haddii uu qofka ku sugan yahay waxaa dhici karta in uu cudurka ku dhaco xaaladiisa caafimaadna ay liidato. Waxaa ka mid ah xaaladahaas nafaqa daro, HIV ama AIDS inuu qabo qofka, cudurka macaanka ama sokorowga, ama in ay haweeneyda uur ee leedahay. xaaladahaas mid ka mid ah haddii ay jirto difaaca jirka aad uma xoogano, mana ka adkaan kara caabuqa qaaxada ama TB-shada, waxaana fududaanaysa in ay bakteeriyada ku badato kuna faafto sanbabka gudihiisa. haddii ay sii badatana waxay gaaraysaa sanbabka oo dhan, waxayna sababaysaa qufac iyo dhiig isla socda. sanbabka wuxuu bilaabayaa in oksijiinka uu jirka ka helayo uu yaraado, waxayna sababaysaa dheecaanada qaar ama hormoonada qaar ka mid ah in ay bedelmaan, taasoo keenaysa in qofka appetite-kiisa uu yaraado ama rabitaanka cunnada uu qofka ku yaraado. bakteeriyada TB-shada keenta waxay ku faafi kartaa lafaha, waxayna sababi kartaa lafa xanuun, dhabar xanuun, iyo qofka ay ku adkaato in uu dhaqdhaqaaqo. haddii ay TB-shada ku dhacdo kilyaha iyo caloosha, waxay keenaysaa caloosha iyo kilyaha inay aad u xanuunaan qofka iyo xubnaha ku hareeraysan. haddii ay TB-shada ku dhacdo maskaxda, waxay keeni kartaa madax xanuun aad u daran iyo miirka qofka uu daboolmo. calaamadaha qaaska u ah TB-shada xubin walba ay ku dhacdo waxaa ka mid ah miisaanka in uu qofka aad u yaraado, qufac iyo dhiig isla socda in aad ku aragtid qofka, iyo maqaarka oo isbedela. waagii hore cudurkan wuxuu soo maray xaalado badan oo khuraafaad laga aaminsan yahay, si cilmiyeysanna aan loo maareen, wax badanna aan laga ogeyn. 1882 dhakhtar Jarmal ah oo lagu magacaabo Robert Koch wuxuu qeexay uuna ogaaday bakteeriyada keenta TB-shada. 13 sano kadib 1895 Dr. William wuxuu soo saaray raajadana waxay sahashay in la ogaado TB-shada dhibaatada ay jirka u geysanayso, taasoo fududaysay in la ogaado qofka marka uu TB-sha qabo iyo marka uusan qabin. isku dayadaas waxay dhiirigeliyeen in la sameeyo cilmi baaris aad u fara badan, sidoo kalena la isku dayo in la soo saaro daawada cudurka. 1921 waxaa la soo saaray talaalkii ugu horreeyay ee looga hortagayo TB-shada, magaciisana waa BCG. ilaa iyo maantana waa la isticmaalaa talaalkaas, waana talaalka la siiyay ilmaha markii ay dhashaan kadib. maadaama uu cudurkan halis ba'an uu ku hayo adduunka guud ahaan, gaar ahaan waddankeena Soomaaliya. talaalka marka la soo saaray kadib waxaa la helay noocyo ka mid ah antibioticska inay ka hortagi karaan cudurkan TB-shada, sidaas ayaana lagu soo saaray daawada TB-shada. cilmi baaris iyo isku dayo aad u fara badan kadib, 90% dadka caabuqa TB-shada la qaadsiiyo ama neefta qofka qaba ay soo gaarto ma ka muuqdaan wax calaamadaha cudurka ah. maadaama caabuqan dadka uu ku dhaco 90% ka mid ah calaamadaha cudurka aan lagu arkaynin, maxay xaaladan tahay? bakteeriyada TB-shada waxay awood u leedahay in ay jirka ku jirto muddo dheer, qofkiina ay sugto ilaa ay difaaciisa uu aad hoos ugu dhaco. markuu hoos ugu dhacana markaas ay calaamadihii soo baxaan. xaaladaasna waxaa loo yaqaanaa latent tuberculosis, waana sababaha ugu badan ee loo isticmaalo daawooyin badan ee kala duwan, sidoo kalena loo isticmaalo waqti aad u dheer sida 6 bilood ilaa 9 bilood.
waxaa xitaa dhici karta xaaladaha qaar in laga sii badiyo wakhtiga intaas. taasna waxay sababtaa mararka qaar in ay dadka ku adkaato inay daawada qaataan ama ay ku fashilmaan inay dhammaystiraan daawada. waxaana halkaas ka dhalanaya haddii uu qofka isku dayo in uu daawada mar kale uu ka qaato cudurkaas in aysan waxba u tarin ama daawadii oo qofka ku noqdo resistant. wakhtigan hadda la jooga ilaa iyo 30 waddan ayay aad ugu badan tahay tiibishada, maalin walbana bukaanno cusub uu ku dhacaa. waddamadaas waxaa aad u adag in ay helaan daawooyinka tiibishada. sidoo kale waxay u badan yihiin waddamadaas dadkooda ku nool in ay aaminsan yihiin in uu cudurkan ku dhaco dad qaas ah, sidoo kalena in la takooro inay u baahan yihiin. taasna waxay sababaysaa in dadka ay qarsadaan cudurka marka uu ku dhaco ay ogaadaan, bulshadiina ay soo dhex galaan, hadhowna dadkii ay qaadsiiyaan, dhibkiina meeshaas uu ka sii bato, mar walbana la arko in bukaanadii ay tiradooda aad ay u sii badanayso. khubarada caafimaadka dhammaantood waxay isku raaceen in maanta loo baahan yahay qalab casri ah oo lagu ogaado tiibishada qofka inuu qaba iyo in kale, jawaabtana ay ku soo baxaysa si degdeg ah. sidoo kale in la helo daawo wakhti gaaban uu qofka ku raysan karo, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah helista talaalka iyo tayadiisa in la kordhiyo si adduunka oo dhan uu ula dagaalo caabuqan. cilmi baarayaasha caafimaadka qaar ka mid ah ayaa soo saaray haddeertan tijaabooyin aad u wanaagsan, waxaana ka mid ahaa in caabuqa tiibishada laga baaro kaadida, jawaabtana ay ku soo baxda 12 saacadood meesha awal ay ka ahaan jirtay wakhtigaas wakhti aad uga fara badan. sidoo kale waxaa jira daawooyin tijaabo ku jiray iyo kuwo la helayba oo ayagana 75% wakhtiga daawada la qaadanayo soo yareynayo oo wakhti gaaban qofka uga raysan karo tiibishada. haddii ay dadaalada cilmi baarayaasha wadaan meesheeda laga sii wado, waxaa dhici doonta in la cirib tiro tiibishada iyo cudur walba oo dhibaateeya dadka. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan. insha allah usbuuc walba waxaan soo dhigi doonaa 3 fiidiyo oo muhiim ah. wixii tale iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga. sidoo kale inoogu soo dir commentiga mawduucii aad doonaysa in laga soo hadlo. si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. waa inoo mar kale iyo fiidiyo kale insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.